Assalaamu calaykum. Marka aan ka hadlayno kaadida ama saamiga waxa ay ku jirtaa waxyaabaha aan inta badan ku garanno in jirkeenna ay ka jirta caafimaad darro, gaar ahaan goorta ay jirto biyo cabis la'aan iyo jeermisyada ku dhaca kaliyaha iyo kaadi mareenka. Muuqaalkeenna maanta ayaa ku saabsanaan doona 9 waxyaabood oo tilmaamaya noocyada kalarada ee saamiga ama kaadida iyo waxyaabaha ay ka turjumayaan. Haddii aad dareemaysid xanuun kaliyaha iyo kaadi mareenka ah, muuqaalkan waa kaaga ee daawo. Hana iloobina page-ka follow iyo like iskugu darto, channel-kana subscribe saarto, welibana adoo gambaleelka furanaya si ay kuu soo gaaraan muuqaalada aan ka diyaarinno caafimaadka iyo waxyaabaha ku xeeran. Aan bilaabo fiidiyowga. Nambarka 1 kalar la'aan ama sida Soomaalidu u taqaano saami caddaan. Saamigaaga haddii uu noqdo mid caddaan ah ama kalar la'aan ah, waxa uu fariin cad ka bixinayaa inaad biyaha si fiican u cabtay ama jirkaagu uu haysto biyihii uu u baahnaa, maadaama loo baahan yahay maalinkii ku dhowaad 3 liitar iyo bar ilaa 4 liitar inay cabaan raggu, halka dumarkana loo baahan yahay 2 liitar iyo bar ilaa 3 liitar inay cabaan si jirkooda uu ahaado mid caafimaad qaba oo fiyoobi qabkiisu u wanaagsan yahay. Balse haddii ay dhacdo markasta oo aad galaas biyo aad cabtaa inaad dhigto kaadi bilaa kalar ah, taasi waxay ka turjumaysaa inaad ka jiran tahay kaliyaha ama ay sonkori ku hayso. Sidaa daraaddeed la xiriir dhakhtar si aad uga fikirto fiyoobi qabkaaga. Nambarka 2 saamiga kalarka jaalaha tiqda ah ama buuxa leh, afka qalaadna loo yaqaan dark yellow urine. Kalarkan ayaa kan sida saxda u tilmaama inaad caafimaad qabto, welibana biyaha jirkaaga ku jiraan ay ku filan yihiin inaad ahaato qof ay u caafimaad qabaan dhammaan kaliyihiisa iyo kaadi mareenkiisa. Haddii saamigaaga uu kalarkani leeyahay, sida aad wax u isticmaasho waa sida kuu wanaagsan ee ku dadaal inaad joogtayso arrinkaas. Nambarka 3 saamiga leh midabka malabka oo kale ah. Kalarkan ayaa tilmaan u ah in jirkaagu uu biyaha yareeyay uuna u baahan yahay inaad biyo cabto sida ugu dhaqsiyaha badan. Kalarkan ayaa isbedelaya markastoo aad biyaha badsato, waxa uuna soo noqonayaa sida caadiga ah ama normalka ahayd. Inta badan in kaadidaada ay sidaani noqoto ayaa waxaa keena dhididka kulaylaha kaa baxa iyo goortii aad samaysid jimicsi fara badan. Nambarka 4 saamiga leh midabka bunniga ama kalarka kafeega. Kalarkan ayaa sheegay inuu jiro fuuqbax saa'id ah una baahan inaad dareere ama biyo aad cabto sida ugu dhaqsiyaha badan uguna dadaalsan. Sidoo kale kalarkan ayaa kaadida mararka qaar lagu arkaa haddii uu jiro xanuun ka jira beerka iyo xanuuno kale oo ku dhaca maqaarka iyo neerfaha. Sidaa daraaddeed kalarkan oo kaadida lagu arkaa waxay tilmaan ah kuu sheegaysaa in dhakhtar iyo dabiib aad u baahan tahay. Nambarka 5 saamiga oo lagu arko kalarka gaduudan ama casaanka ah. Sida caadiga ah, waxa la cuno ama la cabo waa bedeli karaan kaadidaada kalarkeeda, balse haddii aadan waxba isticmaalin haddana midabka gaduudan aad ku aragto kaadidaada, waa xaalad caafimaad darro oo keeni karta xanuunadan soo socda: kaadi dhiigga, xanuunada kaliyaha, kansarka kaliyaha iyo kaadi haysta, dhagaxa kaliyaha, jeermiska kaadi mareenka, xanuunada qanjirada ragga ku dhaca ee prostate-ka loo yaqaano, iyo in aad ku sumowdo sunta loo yaqaan liidka. Haddii aad isku aragto kaadi dhiig, waxaad si emergency ah ama gargaar degdeg ah ugu baahan tahay dhakhtar kula tacaala oo xaaladaada caafimaad ogaada. Nambarka 6 saamigaaga oo lagu arko kalarka ama midabka oranjiga ah. Kaadidaada haddii ay yeelato kalarkaasi oranjiga ah, waxay la micno tahay inaadan biyo kugu filan aadan cabin ama beerka ay wax ka jiraan.
sidaa daraaddeed biyo cab. haddii ay isbeddeli weyso ama ay baabi'i weysana kalarkaas dhakhtar ku daaweeya la xiriir. nambarka 7 saamigaaga oo lagu arko kalarka buluugga ama cagaarka ah. inta badan kalarkani kaadida leh ayaa ka timaada ka gadaal marka aad cunto cunno keenaysa kalarkaasi inay kaadidaada lahaato. mararka qaarna waxay ka imaan karaan infections ama jeermisyo ku dhaca kaadi mareenka qaarkood. nambarka 8 saamiga oo lagu arko kalarka daruurta oo kale ah. kan inta badan waxa uu yimaadaa markii uu jiro infection ku dhaca kaadi mareenka iyo keliyaha. sidoo kale waxa uu imaan karaa fuuqbax saa'id ah markii uu jiro. talada ugu fiican ee kalarkani ayaa ah inaad biyo cabto. haddii ay sii jirto calaamadaana waa inaad la xiriirtaa dhakhtarka kuugu dhow ee kula tacaali kara. nambarka 9 saamigaaga oo lagu arko kalarka ceeryaamada ama qiica oo kale ah. kalarkani ayaa yimaada markii borotiinka uu ku bato kaadidaada ama markii ay jiraan xanuunno ku dhaca keliyaha iyo kaadi mareenka. markastoo aad aragto midabkaani waa muhiim inaad dhakhtar la xiriirto. ugu dambayn gebagabada muuqaalkeenna waxaan leeyahay mar kasta oo dhakhtar u tagtid waa muhiim inaad dhan kasta u faahfaahiso waxaad isku aragto jirkaaga iyo waxyaabaha aad dareemaysid. waxay ka caawinaysaa inuu garto meelaha uu dhibka ka jiro ama xanuunka uu kaa hayo. muuqaalkeenna maanta intaasi ayuu ku egyahay qaraabo. fadlan follow dheh page-ka, like-na saar muuqaalka, subscribe-na dheh channel-ka, gambaleelkana furo si muuqaalada xiisaha leh aan soo gelino ay kuu soo gaaraan mar walba. mahadsanid. muuqaalka inoo xiga.